kumanaan qof ayaa labada ragcadood ee munaasabada salaada ciidul adxada ku oogay garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga. madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Umar oo la hadlayay muslimiintii oogeysay salaada ciida ayaa waxa uu yiri kulligiin ciid mubarak ilaahay fadliga ciid hayna siiyo dhamaanteenba ilaahay naxariistiisa hayna siiyo iyo roobka abaaraha iyo dhibaatada iyo sicir bararka ilaahay naga qaado waad mahadsantihiin alla soo naxariisto alla isaamaxo caloosha alla isu furo waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. geestiisana gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka Sheekh Axmed Abi Matan ayaa waxa uu yiri Allah subhanahu wa ta'ala inna waafajiyay garoonkiisa inna keenay marka ilaahay nicabdiisa aan ku mahadinno amniga ilaahay inna siiyay aan ku mahadin aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadinna diinteenna horumarka diintu wuxuu ku iman karaa inaan nabadgeliyo helo horumarka diintu wuxuu ku iman karaa inaan gamcaha isqabsano oo walaalowno horumarka diineed oo dhani wuxuu ku iman karaa midnimo iyo nabadgeliyo labada haddii la waayo horumarka diineed ma imanayo waxaan jeclahay inaan idin la wadaago muddadii isbeddelka ahayd maxaa inoo qabsoomay xagga arrimaha islaamka maxaan horumar diineed helay muddadii isbeddelkan u jiray baldhigihiina ii fura kuwa dhammaystirmay waa 735 masjid ayaa dhammaystirmay waa intii isbeddelka ka dambaysay weeye waa 735 masjid ayaa dhammaystirtay ilaahay baa iska leh ku mahadin subhanahu wa ta'ala يعني marka la fiiriyo xayaatadii aynu soo jiray marka la eego 50 sanana inta in la eegino ma abadan sida iyo kadalika 139 dugsi qur'aan ayaa inoo dhisantay intii isbeddelka ka dambaysay laadu dhageysta 139 masjid qur'aan oo qur'aana ayuu ilaahay inoo taam yeelay dhismahooda sida awgeed walaalayaal waxaa lagaba maarmaana inaan horumarka diineed ka wada shaqayno cid gaar u lihi ma jirto masaajidda ilaahay baa iska leh shakhsiga dhisayna ajrigiisu leeyahay walow xabad bulkeeti aad ku darsatide xabad bulkeeti walow aad ku darsatide ajrigeedii baad leedahay oo sadaqa jaariya ayaa ku soconaysa horumar islaamkii ana waa laga helayaa marka aan ka wada qayb qaadanno